السلام عليكم صحابتي إذا كنتوا دواذا channelka waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo waalidka iyo caruurta maxay tahay waxyaabaha laga rabo inay dhex maraan si guriga farxad uga dhalato si connectionkiina oo u fiicnaado isku soo dhawaashihiina si u fiicnaado si xiriirkiina oo u fiicnaado marka halkan waxaan rabaa inaan 5 waxyaabood idinkugu sheego 5taas waxyaaboodna tartiib u fahmi doontiin and I hope inaa markaas videoga aad dhameystirtid si aad u fahantid 5 waxyaabood oo ka hadlayo marka marar badan message la ii soo diray iyo TikTok live markaan ku jira dad ila wadaageen ani waa qayliyaa aniga dulqaad ma lihi maxaan sameeyaa maxaa iga qaldan marka waxa loo baahan yahay inaa horta calm down sameysid waxba kaama qaldano just waxa waaye situationka sidii aad ula deal gareyn lahayd ama aad u sameyn lahayd kaliya waa inaad saxdid waa ogtahay situation kasto lagu jiro ama xiriir kasto la sameynayo ha noqoto walaasha ha noqoto walaalka ha noqoto lamaanahaaga waa ogtahay inuu mar walba ay dhibaato imaan karto conflict inay imaan karto marka conflict marka imaatana badana maxaa isku daynaa inaan wanaajino wixii naga dhacay qaladkii naga dhacay waxaas oo dhan inaan wanaajino isku daynaa marka caruurtana ma aragtay waa sidoo kale caruurtaada xiriirka kala dhaxay wuxuu kaaga duwan yahay dadka kale ilmahaaga way adiga dhashay 24 maantana waa is ag joogtiin marka waxa loo baahan yahay in laga fakaro hab sideen relationshipka ilmahayga aan u fiicnayaa si farxadda gurigayga ay u fiicnaato si connectionka adiga ilmahaaga idinka dhaxay uu u fiicnaado marka mar walba la qayliyo qaylada guriga way xumaysaa ilmahana saasay ka qaadaan iyo naxitaan badan ay ka qaadaan marka waxa loo baahan yahay inaad create gareysid ama aad sameysid meel oo qurux badan oo labadiina adiga caruurtaada aad iskugu soo dhawaan kartiin oo jacayl isku muujin kartiin soo dhawaasho iskugu muujin kartiin connectionkiina oo u fiicnaado marka ilmahaaga uu u baahan yahay inuu la dajiyo oo xoogaa ama oo yaayo ama uu xanaaqsan yahay ama oo haynin ma aragtay oo fakari karin waxa loo baahan yahay inaad caawisid caawinaadaas marka badana ilmaha markay rabaan inay wax ku sheegaan ilaa iyo muddo ma aragtay waxay isticmaalayaan emotionkooda so emotionally ina support siisid waa emotionally ina caawisid waaye so waxaa laga rabaa ina hab siisid ina mac siisid ina u soo dhawaatid waxyaabahaas oo kale marka 5 waxyaabood rabaa hadda inaan kula wadaago oon rajaynayo insha Allah inay kuu fududaato adiga iyo ilmahaaga xiriirka connectionka gurigiina inuu ku fiicnaado gurigiina farxad ku noqoto so 5taas waxyaabood halkan aan ku soo qoray midda koowaad waxay tahay mar walba ina isku daydid ina ilmahaaga la qosashid mar walba ilmahaaga la qosashid xiriirkiina uu fiicnaanaya midda kale waxay tahay isku day ilmahaaga ina mar walba dhageysatid oo aad hadalkay ku sheegayaan si fiican u dhageysatid marka si fiican u dhageysatid waxay dareemayaan in la fahmay adigoonan hadalkooda dhexgalaynin soo dhageyso horta maxay ku sheegayaan marka hadalkooda ka dhageysatid adigoo markaas midda saddexaad waxay tahay ina u soo dhawaatid iyaga indhahaaga indhahooda inay isku yimaadaan inay iska soo horjeestaan markaas ilmahaaga eye level ina kula hadashid midda afraadna waxaa waaye ina ilmahaaga u sheegtid inaad ku faraxsan tahay inuu ilaahay oo ku siiyo ilmahaaga inay hadiyadaada yihiin midda shanaad waxaa waaye haddii aad awoodaysid inaa ilmahaaga la qaadatid waqti qofba mar waqti la qaadatid marka hal inaa time la qaadatid oo qofkaas markaas aad guriga kala baxdid oo aad meel la tagtid meeshii rabtaba ha noqoto waa inaa markaas aad isku dayaysid inaa shakhsigaas aad baratid because waa shakhsi cunuga inkastoo cunug yahay weli waa shakhsigaasna waa qofkii markaa hadhowti aad koridid aad la tashan lahayd oo taladaada kula meel dhigi lahay oo mataqaanaa meel walba rabta inaad tagto aad la tegi lahayd advisor kuu noqon lahay marka ilmahaas because ay yar yihiin ma ahan inay caqligooda oo mataqaanaa meesha ka maqan yahay caqligooda inaa la kobciyo waaye maskaxdooda in la kobciyo waaye so mar walba waxaa is soo xasuusisaa mar walba inaa u sameynaysid koritaanka ilmahaas korinaysid horta ilaahay dartiisa u sameynaysaa ilaahay yaa kugu amaansada ilmahan ilaaha ku siiye so mar walba soo xasuusi caruurtayda waa hadiyadayda caruurtayda waa amaanadayda markaasna insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku fududaato because ilmo korinta wax sahlan maahan waa wax dulqaad badan u baahan waa wax in laga fakaro wax badan u baahan waa mataqaana xadgudub aan lagu sameyn karin waa in xaquuqdooda aan ilaalinaa waa inaan ilaalinaa sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam anagoo ilaalinayna wax walba waa in ilmahaasna xaqooda aan ka soo baxnaa marka insha Allah niyadeena ha wanaagsanaato wax walba caruurta u sameynayna aan isa soo xasuusina in ilaahay dartiis u sameynayno iyo caruurteena inay hadiyadeena tahay
caruurteena inay ammaanadeena tahay. I hope inaa fahanteen insha Allah. Subscribe and like and share hanaga iloobin. Videogan hadduu ku anfaca walaalo kale la sii share gareey in kuwa badan oo sidaan oo kale way soo socdaan marka nagu xirnaada biidnillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.